Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkani waa shabakada wararka ee Garaa TV. Qodobada aad xilligani daawan doontaan waxaa ka mid ah khilaaf cusub oo ka dhex qarxay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash oo ku hor yimid damaca muddo kororsiga ee hogaamiyaha Puntland. faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya tiro hubiyaala oo lagu weeraray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo qasaaro leh dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan degdeg ah iskugu yeeray xubnihii golaha midowga murashaxiinta mucaaridka kadib markii la dhaqaajin waayay heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee lagu gaaray magaalada Muqdisho kol hore. senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dalka Faransiiska ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa isagoo sheegay in la joogo waqtigii ay beesha caalamku aqoonsan lahayd Somaliland. iyo maamulka Jubbaland oo tababar u soo xiray ciidamo gaar ah oo ka qayb qaadanaya howlgallada kooxda Al-Shabaab looga sifaynayo deegaanada maamulkaasi. qodobada iyo wixii kale ee soo raacaba waa daawan doontaan haddii Allah awood leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabashaha mar kale daawadayaal, halkani waa Garaa TV. xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. macadka Daarul Xufaad waxa uu ogeysiinayaa bulshada Soomaaliyeed inuu qaadanayo arday cusub oo habka online-ka ku baran doona xifdinta iyo barashada Quraanka Kariimka. wixii faahfaahinta dheerna kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. aan ku bilaabo Puntland ee wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi ayaa sheegaya in khilaaf cusub uu ka dhex qarxay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash kaasi oo salka ku haya xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashooyinka madaxtooyada ee maamulka Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa maamulka Axmed Karaash ayaa isku khilaafay qorshaha muddo kororsiga ee ay wado xukuumadda Deni si ay u sii dheeraysato muddo xileedkeeda kursiga madaxtooyada. sida ay warbaahinta u sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Garowe, Siciid Deni iyo Axmed Karaash ayaa isku seegay qorshahaasi muddo kororsiga iyadoo Karaash uu ka hor yimid damaca madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni waxaana uu dalbaday in doorashada lagu qabto xilligii loogu talagalay. madaxweyne Siciid ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ka shaqaynayay sidii uu muddo kororsi u samaysan lahaa si aysan doorashada kusoo foolka leh ugu qabsoomin waqtigii sharciga ahaa ee isaga la doortay oo ku beegan 8 bisha Janaayo 2024. khilaafka labadani mas-uul ayaa la soo warinayaa in uu jiray laakiinse uu huursanaa tan iyo horaanta bishii inaga dhamaatay, laakiinse hadda uu si toos ah usoo shaacbaxay iyadoo Karaash u muuqdo in uu u bayray dhanka siyaasiyiinta mucaaridka ah ee doonaya in doorashada lagu qabto qaabkii hore isla markaana ay ku dhacdo xilliga loogu talagalay. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa la soo sheegayaa inuu diidan yahay qorshaha Deni ee muddo kororsiga, wuxuuna doonayaa in doorashada lagu qabto waqtigeeda si meesha looga saaro xiisada ka dhalatay qorshahani iyo rabitaanka guracan ee Siciid Deni taasi oo hadda ka taagan magaalada caasimadda ah ee Garowe. Axmed Karaash ayaa waxa uu go'aankiisa ku laray dood ah in haddii muddo kororsi uu yimaado uu horseedayo qalalaase amni iyo dagaal sokeeye oo ka qarxa Puntland sidii horeyba looga dhaxlay isku dayo noocaasi oo kale ah oo ka dhacay Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo hadda ku maqan xajka ayaana la filayaa in marka uu soo laabto uu si rasmi ah u cadeeyo mowqifkiisa xiisada siyaasadeed ee ka taagan Puntland taas oo salka ku haysa damaca guracan ee madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni. qobara ku sugan magaalada Garowe oo si dhow la socota xiisadani ayaa sheegaya
in Axmed Karaash uu dareensan yahay inaanu marnaba faa'iido ku keeni doonin madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni qorshihiisa muddo kororsiga ilaa inay horseeda mooyee gacanka hadal iyo qalalaasa Puntland ka dhaca. dabayaaqada bishii Juun ee aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii ay ku dagaalameen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ciidamada daacadda u ah madaxweyne Deni iyo kuwa mucaaridku ay biritaarayaan ee uu horkacayo sargaalka lagu magacaabo General Jamcaale, waxaana halkaasi ku dhintay 30 qof oo iskugu jiray shacab iyo dhinacyadii dagaalamay. dagaalka ayaana qarxay kadib markii baarlamanku ay meel mariyeen in laga doodi karo furista dastuurka maamulka Puntland oo la dareensan yahay in Siciid Deni uu ku hoos wado qorshihiisa muddo kororsiga. madaxweyne Siciid Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa u muuqday kuwa aad iskaga dhow arrimaha siyaasadda wixii ka dambeeyay markii ay ka heshiiyeen khilaafkii ka dhex bilowday bishii May ee sanadkii hore ee 2022 markaasi oo Siciid Deni uu kaga qayb galay magaalada Muqdisho doorashooyinkii madaxtooyada Soomaaliya ee uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. arrimahani waxay ku soo aadayaan xilli ay ka sii darayso xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Puntland iyadoo isimada gobolka Nugaal ay dalbadeen in la hakiyo tallaabooyinka wax ka beddelka dastuurka maamulkaasi ilaa inta ay ka dagayso xiisadda siyaasadeed ee dhowaan isku rogtay gacanka hadalka. guddoonka golaha wakiilada ee Puntland ayaa gadaal ka riixaya qorshaha wax ka beddelka loogu sameeyo dastuurka maamulkaasi oo sida la fahansan yahay gacan saar la leh madaxweynaha Puntland Siciid Deni. dhowaan ayay ahayd markii golaha uu ansixiyay wax ka beddelka dastuurka Puntland ka gadaal markii ay ogol u codeeyeen 34 mudane oo ka mid ah 35 mudane ee soo xaadiray kulankaasi. si kastaba Puntland ayaa hadda wajahaysa xaalad adag oo hubanti la'aana maadaama gacanka hadalka uu ka dhashay dastuurka Puntland ee la furayo kaasoo ay meel adag iska taageen saamileyda siyaasadeed ee maamulkaasi intooda badan. geesta kale tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo siyaasiyiin miisaan lihi ay gaareen magaalada Garowe si ay qayb uga noqdaan xalinta khilaafkani. siyaasiyiin miisaan leh oo ay hogaaminayaan ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, sidoo kalena uu qayb ka yahay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaasi oo ay gaareen maalinimadii Isniinta laguna soo dhaweeyay. ujeedkooda ayaa ahaa ka qayb qaadashada dadaalada lagu qaboojinayo khilaafkii ka dhashay doorashada halka dhinaca ee dabayaaqada bishii hore ay ku nafwaayeen 30 ruux. ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka ayaana ku biiray odayaal dhaqameed kale oo dhowaan gaaray magaalada Garowe si ay wada hadal ugu furaan mucaaridka iyo xukuumadda Siciid Deni ee isku horfadhiya magaalada Garowe. Cumar Cabdirashiid ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay in meesha laga saaro ismariwaaga jira, wuxuuna yiri waxaa naga go'an inaan xalino ismariwaaga jira doorashadii ugu horeysay waxay ku dhacday si ammaan ah, waxaana rajaynaynaa in arrimaha dhiman lagu dhameeyo si lagu wada qanacsan yahay ayuu sheegay. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cumar Cabdirashiid ayaa ka soo horjeeda tallaabooyinka keeni kara in muddo kororsi loo sameeyo madaxda maamul goboleedyada uu ka mid yahay Siciid Cabdulaahi Deni. waa tahay aan ku siqa wararka ee faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya tiro madaafiic ah oo lagu weeraray aagga madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho. weerarkaasi uu dhaliyay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac. waxaa goor hore oo subaxnimadii tiro madaafiic ah lagu tuuray aagga xarunta madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho, waxaana madaafiicdaasi ka dhashay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac. dadka magaalada Muqdisho oo badi hurday halka kuwa kalena ay ku guda jireen tukashada salaada subax ayaa mar qura la maqlay dhawaqa tiro madaafiica kuwaasi oo loo tuurayay jihada ay ku taalo madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho. mid ka mid ah madaafiicda lagu tuuray madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa ku dhacay guri dad shacab ah ay degan yihiin oo ku yaala xaafad ka tirsan degmada Wardhigley ee gobolka Banaadir.
inta la xaqiijiyay aabba iyo gabar uu dhalay ayaa ku dhintay madfaca gurigooda ku dhacay waxaana sidoo kale madfacaasi ku dhaawacmay hooyada qoyska iyo xubno kale aabbaha dhintay ayaana la sheegay inuu ahaa macallin dugsi quraan madaafiicda lagu garaaco madaxtooyada iyo xarumaha kale ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa marmarka qaar ku dhaca guryo dad shacabihii ay degan yihiin waxaana uu khasaare gaarsiiyaa dad aan waxba galabsan oo guryahooda jooga ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkani hase ahaatee waxaa la tuhmayaa inay ka dambeeyaan kooxaha argagixisada sida kooxda al-shabaab oo hadda dagaal adag kula jirta dowladda Soomaaliya geesta kale ma jiro wax hadal ah oo ilaa iyo hadda ay ka soo saareen weerarkani laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya kaasi oo ay ku faahfaahinayaan khasaaraha guud ee weerarkani la qaaday goor hore oo aroornimadii waa tahay aan ku siisiqa wararka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo siyaasadeed oo xasaasi ah waqtigani ka bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wararka soo gaaray warbaahinta ayaa sheegaya in madaxweynuhu casuumay xubno kamid ah saamilayda siyaasadda ee dalka gaar ahaan xubnihii ay midowga murashaxiinta isku bahaysteen markii uu talada dalka joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiin uu ku jiro ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkani magaalada Muqdisho ku soo wajahan kuwaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumay sida ay xogaha ku heshay warbaahinta Xasan Sheekh Maxamuud ayaa siyaasiyiintani kala xaajoon doona tabashada ay ka qabaan hogaaminta dalka iyo nidaamka uu doonayo in la qaato ee dhawaan ka soo baxay heshiiskii golaha wada tashiga qaranka talabadani waxaa la sheegay inay ku riixday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu dhaqaaq waayay heshiiskii golaha wada tashiga qaranka ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay bishii May ka soo saareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaasi oo wax looga bedelay haykalka siyaasadeed ee Soomaaliya qodobkii ugu horeeyay ee heshiiskaasi ayaana si toos ah u fashilmay waxaana uu dhigayay in muddo bil gudaheeda lagu soo magacaabo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ka kala imaanayay maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe kulamada uu toddobaadka soo socda bilaabaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka horeeyay kulan uu dhawaan la yeeshay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed sida aan xogta ku helnay Sheekh Shariif ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu iskugu yeero siyaasiyiin kale iyo saamilayda siyaasadda si loo soo bandhigo dooda ay ka qabaan heshiis siyaasadeedkii 27ka bishii May ay soo saareen golaha wada tashiga qaranka oo ay ka hor yimaadeen siyaasiyiin badan oo ka mid ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya siyaasiyiinta uu hadda casuumay Xasan Sheekh ee la filayo inuu la fariisto ayaa war ay ku midaysan yihiin ka soo saaray markii uu soo baxay heshiiskii golaha wada tashiga qaranka oo dhigayay in wax laga bedeli doono nidaamka ay u dhisan tahay dowladnimada Soomaaliya iyo muddaxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda marka laga reebo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saamilayda siyaasadda gaar ahaan xubnihii isbahaysiga uu la ahaa Xasan Sheekh ayaa si adag uga hor yimid in dalka uu u guuro nidaamka madaxtooyada in dalka uu mustaqbal ka yeesho laba xisbi iyo in muddaxileedka madaxweynaha iyo kan baarlamaanka la kordhiyo lana gaarsiiyo muddo 5 sanadood madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu soo baxay heshiiskani waxa uu soo saaray qoraal uu ku muujinayay inuu taageersan yahay nidaamka madaxtooyada iyo doorasho qof iyo cod ah oo lagu galo nidaamka xisbiyada balse waxa uu tilmaamay in heshiis ballaaran oo wadar ogol ay u baahan yihiin qodobada qaar ee ku jiray heshiiskii golaha wada tashiga qaranka ee ka soo baxay shirkii magaalada Muqdisho waa tahay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo dhaweeyay senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dalka Faransiiska sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sare ee dalka Faransiiska gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan
ayaa ku soo dhaweeyay xarunta golaha guurtida ee magaalada Hargeysa xildhibaankani ka tirsan baarlamaanka waddanka Faransiiska. xildhibaankani ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Faransiiska oo lagu magacaabo Olofia Catre ayaana hadal kooban ka jeediyay goobta soo dhaweynta isagoo sheegay in Somaliland ay joogto waqtigii ay aqoonsan lahayd beesha caalamku. ugu horeyntii waxaa goobtani soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan iyadoo sidoo kalena uu ku sugnaa goobta kana hadlay wakiilka Somaliland u qaabilsan dalka Faransiiska. waxaana ugu dambeyntii hadallo kooban ka jeediyay goobta xildhibaan Olofia Catre oo sheegay inuu Somaliland kala shaqeyn doono hanaankii ay ku heli lahayd madax banaani buuxda. senatarka ayaa shaaca ka qaaday in Somaliland ay joogto waqtigii ay aqoonsi buuxa ka heli lahayd wadamada beesha caalamka marka loo eego buu yiri hanaanka dimuqraadiyadda ee ay ku tilaabsatay taasi oo ku tilmaamay qiimeynta heerkii lagu aqoonsan karay Somaliland. hadalkani oo magaalada Hargeysa ka sheegay senatarkani ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Faransiiska sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo gelinka dambe ee talaadada ay ka doodayaan baarlamaanka Britain mooshin la xiriiraha in Somaliland loo aqoonsado dal madax bannaan. mooshinkani oo hor keenay baarlamaanka xildhibaan Gavin Williamson oo horay u soo noqday wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayayna dood adag ka yeelan doonaan xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Britain iyadoo haddii uu ansaxo ay meel marin doonaan labada aqal kadibna loo gudbin doono dowladda. dhaqdhaqaaqani cusub ee ay bilaabeen wadamada Yurub lana xiriira madax banaanida Somaliland ayaa uga dhigan xukuumadda Hargeysa farxad iyo natiijo horle oo ay ku siqday dhanka intiraaf raadinta kadib markii ay sheegtay inay ka laabatay midowgeedii koonfurta Soomaaliya ay la gashay sanadii 1960kii. Somaliland ayaa sheegatay inay tahay dal madax bannaan sanadkii 1991 markaasi ay burburtay dowladii dhexe Allaha u naxariistay madaxweyne Jaale Maxamed Siyaad Barre. waxaana muddadaasi 32 sano ah ee ka dambeysay waqtigaasi ay halgan ugu jirtay sidii ay kaga mid noqon lahayd dalalka madaxa bannaan ee ku jira qaramada midoobay. hase ahaatee muddadaasi 32 sanadooda Somaliland kuma aanay guuleysan in mid ka mid ah wadamada caalamka uu intiraafo dal aqoonsan yahay. aanu gudbo wararka madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa duleedka magaalada Kismaayo tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. munaasabada ciidankani tababarka loogu soo xiray ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland General Yusuf Dhuumaal, taliyaha ururka 5aad ee guutada 16aad ee ciidanka Danab Gaashaanle Carab Deeg Axmed iyo saraakiishii tababarkaasi bixinaysay. tababarkani oo socday muddo 2 bilood ah ayaa waxaa bixinayay saraakiil ka tirsan ciidanka ATMIS waxaana askartani la baray caafimaadka oo lafdhabar u ah nolosha aadanaha kaalin weyn ku leh marxaladaha dagaalka ee dawladdu ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. tani waxay ka mid tahay caawimaadda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka helaan howlgalka ATMIS ee waqtigiisu gabagabada yahay hadda isla markaana baneeyay saldhigyadii ugu horeeyay laguna wareejiyay ciidamada xoogga dalka. ugu yaraan 6 saldhig ayay ATMIS ku wareejiyeen ciidamada xoogga dalka bishii hadda dhamaatay kuwaasi oo ku kala yaala gobolada Shabeellooyinka iyo Gado. dabayaaqada sanadka soo socda ayaa lagu wadaa in askariga ugu dambeeya ee ATMIS oo Soomaaliya ka baxo sida ay qorshaysay dowladda Soomaaliya oo halgan adag ugu jirta in midaasi ka hor ay hanato amniga guud ee wadanka. kooxda Al-Shabaab oo hadda qaybo badan ka joogta dalka ayaa la doonayaa in sanadkani lagu soo afjaro si ATMIS ay ugu baxdo heshiiska ay ku joogaan wadanka oo cadeynaya waqtiga ay baxayaan. ciidamada ATMIS waxay wadanka joogaan in ka badan 15 sanadood waxayna muddadaasi dagaalada Al-Shabaab ku waayeen
kumanaan askari sidoo kalena waxay qayb ka qaateen dhismaha ciidanka qaranka ee hadda soo gaaray heerka wanaagsan. dowladda Soomaaliya oo curdin lagu tilmaami karo dagaal argagixisana ku furan yahay ayaa dadaal adag ugu jirta dhismaha ciidamada qaranka, waxaana hadda rajo badan laga qabaa in sanad gudihiisa ay ciidanka Soomaaliya ku hantaan guud ahaanba amniga Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.